السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انت كدب marka hore waxaan u mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee shirkan qiimaha badan leh noo soo abaabulay oo intaasoo muslimiina meesha isugu keenay iyadoo laga arrinsanayo arrin wada qoseeyo oo waajib nagu ah dhammaanteen inaan xal u helno. marka runtii dad badan baa hadlay in badan waa la sheegay badin maayo warka codsigana waad maqlayseen oo la soo gaabiyaa la lahaa. horta marka hore hal meel baan baraarujinayaa. Sheekh Soomow baa bilaabay, Allah xifdiyo kalimaadkiisa. madaxweynihii hore ee Hirshabeelle markuu ka waramayay nabadoonkeenna wuxuu yiri wuxuu aad ugu celceliyay wuxuu u dhintay buu ku celceliyay. kaliya waxaan xasuusinayaa ayadii uu Sheekh Soomow akhriyay baa waxay ahayd wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaqun. hadhihina kuwa fi sabilillahi ku dhintay waa dhinteen, hadhihina ilaahay wuxuu yiri waa nool yihiin laakiin ma garanaysaan say u nool yihiin. Allah garanaya subhanahu wa ta'ala. runtii wuxuu sheegay sheekha xadiidku sheegay waxa kamid ah xadiisku sheegay man qutila duna malihi duna nafsihi duna diinihi irdihi fa huwa shahiid. maalkiisa isagoo difaacanay diintiisa irdigiisa sharaftiisa qofka la dilaahu waa shahiid. marka nabadoonka iyo walaalka kaleba waxaan leeyahay ilaahay naxariistii janno ha siiyo. nabadoonka wax badan baa la sheegay oo uu ku sifoobay, hal xabana waan ku darayaa. wuxuu macallin u noqday dhammaan nabadoonnada Soomaaliyeed buu macallin u noqday. wuxuu yiri waa ikare meesha oo kale soo istaaga. qaar badan way taagan yihiin, qaar kalena way istaagi doonaan. wuxuu ku sifoobay siduu nabiga yeeli jiray markuu cadow dareemo isaga ugu horeyn jiray. habeen baa nabiga Madiina qayl ka yeertay, isaga faras la booday waliba aan kooro lahayn oo leeda intuu ku booday iyadoo seeftuna qortu u suran tahay buu meeshii ka war keenay. dadkii qaylada ku soo cararay buu ka hor yimid lam turaacu isagoo dhahay dhib ma jiree soo laabta. isaga u horeyn jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam. saxaabi kale wuxuu leeyahay hadduu dagaal dhaco nabiga isaga cadowga u xigsan jiray, isagaan ku daba gaban jirnuu yiri. ugaasku wuxuu sameeyay nabadoonku sidaas oo kale in dhalinyaradiisii uu isaga horkaco oo isagu ay ku daba gabadaan ayuu sameeyay. runtii wax fiican buu jideeyay. waxaan markaa anigu u soo laabanaya qaybahaas laga hadlay hadda u laaban maaye. culimadu khayr Allah siiye waxa la yiri may hadlaan. horta qaar badan baa hadlee ogaada. Soomaalidu waxay dhahaan tolka ama reerka meeshuu ninka joogo waa joogaa, laakiin meeshii 2 iyo 3 ay ka joogto waa ku dhan yahay bay dhahaan. qaar baa hadla, qaarka kalena qaar hadda meeshaan fadhiyaba waxaan u jeedaa wali maasa u xirane wali maaska u soo xirane mar dhow iska fiiqi doonaan iyagana. horta taas ogaada. way jirtaa hooga cabsida waa dad bani aadan. anigu ka wasaare ahaan waxaan diyaarinay tiimkayaga oo tawciyada iyo wacyigelinta qaabilsan. diyaar waxay u yihiin hadda u diyaar garoobeen jabhadaha inay wareegi doonaan. maalinba habeenba ciidan ay la hooyan doonaan oo la seexan doonaan, wacyigelin doonaan, waxay ku jiraan u caddayn doonaan insha Allah ta'ala. marka raggaas waliba waxaan ku iri wadaadow ogaada marmarna hal qasnada la soo faarujinayaa ku darsada ku iri safar kaliya wacdi kaliya ma ahan. marka way geli doonaan insha Allah ta'ala. waxaan marka u leexanaya wadaadadu inta hartayna waxaan leeyahay Sheekh Soomow waa hadlay maanta, waqti horena waa hadlay. mana dhiman loo dhiman maayo in la hadlo, loona joogi maayo in la aamusee ha lagu soo daydo inta hadlayso. horeyna waan u iri maantana waan ku celinayaa. maalin dhaweyd kelimo yar baan idin sheegayaa. nin culimo ah ii yimid oo culimada Soomaaliyeed ka mid ah wuxuu igu yiri shaqaan ka rabaa wasaaradda. diyaar waayaan yiri waa lagu siinaya, laakiin waxaa laga rabaa mushaarna waad helaysaa. waxaan ku iri marka waxaa laga rabaa masaajidaad istaagaysaa, shabaab baad sheegaysaa waxay yihiin sharcan wa aqlan wa diinan baad sheegaysaa. sheekha wuxuu yiri anigu hoogaa shaqo qabooban aan u baahanahay. shaqo qabooban
ayaan u baahanahay war waxaan idhi bustooladan kuugu daraya ood guntiga gashato maya ani shaqo qabo banaan u baahnaan lahaa buu yidhi laakiin kuwo badan oo ogol oo u diyaarsan ayaa noo yimid oo diyaara wayna shaqo galayaan insha allahu tacaala marka waxaa dhammaanteena nagu waajiba shareecadeenu ay waajibinaysaa qofka la dulmiyey in loo gargaaro walaalayaal ma garanaysaan dulmi ka weyn qofku dilayo oo ceelka kaa gubayo oo xoolaha kaa qaadanaya oo carruurtaada qaadanaya oo wax uu ku reebaya aan la arag ma dulman yahay qofkaa mise ma dulmana ma dulman yahay soo ma dulmana axaadiis dhowr ahaan idiin sheegayaa nebigu uu ku waajibiyey qofka dulman in loo gargaaro runtii waxaan u mahad celinaya ra-iisul wasaaraha oo tegay hiiraan markuu ka kacdoonka uu ka bilowday ee maalin dhoweyda markuu safray haddana soo maray oo dhiirigelin weyn waayaan waa ugu mahad celinaya kolley waana la tegi doonaa mar kalena waana isku mid meelaha kacdoomada ama jabadaha ay ka bilowdeen oo dhan in loo gargaaro laakiin nimanka hiiraan ilaahay ha ka dulqaado culayska iyagu culays gooniyaa ku dhacay macallinna ummadda way u noqdeen iyagaa bilaabay iyagu nusro gooniya iyo gargaar gooni ahay u baahan yihiin wuu sheegay ra-iisul wasaarahan saxaabi baa wuxuu yidhi xadiis uu bukhaari warinayo amaranaa rasuulullahi sal alla alay wasalam bisabcin amar nebi weeye ogaadahay kayga ma aha nebiga ayaa wuxuuna faray buu yidhi 7 arrimood waxaa ka mid ahayd nusratulmadluum waa xadiis saxiix bukhaariga ku qoran nusratulmadluum nebiga amray in loo gargaaro qofka dulman maal ugu gargaar gacan ugu gargaar af ugu gargaar wax kale haddaad weyso adcafu limaan duca ugu gargaaro u ducay nebigaa sheegay ducada qofka maqan ee muslimka aad u ducaysaa mustajaaba inay tahay tan kale nebigu wuxuu yidhi xadiis kaleoo bukhaari ku qoran unsur akhaaka daaliman aw madluuman walaalkaa muslimka u gargaar hadduu daalim yahay oo gardaran yahay iyo haddii laga gardaran yahayba kelimadaa waxaa la yidhi markii hore kelimay ahayd oo jaahiliyadu ay dhihi jireen waa tan aan dhahno tolkaaga iyo kabtaadaba dhexdaa loogu jiraa oo lagama baxo hadday gardaran yihiinna waxay dhihi jireen hal ana ilaa min khusaya in hawaytu buu dhihi jiray jaahiliyadoodii aniga tolkaasaan ka tirsanahay hadday baadiyoobaan waa la baadiyoobi buu dhihi jiray markaasaa nebiga kelimadaa markuu yidhi way warsadeen hadduu gardaran yahay ha loo gargaaro waa tiri waa saxba haddii laga gardaran yahay in loo gargaaro waaba sax hadduu gardaran yahay see loogu gargaaraya wuxuu yidhi gacantaad qabanaysaa ka joogaad leedahay intaasaa isaga gargaar ugu filan intaasaa gargaaro marka taasuna waxay tusinaysaa in markaa loo gargaaro nebiga dacooyinkiisa ayaa waxaa ka mid ahaan jiray xadiis kaleo abi daawuud ku qoran oo saxiixa rabbi acinnii walaa tucin calaya wansurnii walaa tansur calaya ilaahay nasri iyo guul buu nebiga weydiisan jiray inuu u gargaaro dulmiga uga gargaaro ayuu weydiisan jiray ducadiisana mustajaabay ahayd nebiga sala allahu alayh wasalam waxaa dhacday xadiis kale oo isagana ku qoran saxiix aljaamica ku jiro saxiixa nebiga sal alla alay slam markuu yidhi waddooyinka ha fadhiisanina ee ay dhaheen kama maaranno waxaa ku jiray idaa abaytum ilaa an tajlisuu fahdu sabiil waraddu salaam wa aciinu lmadluum taasaa maxalushaahidkeenu uu yahay haddaad diideen inaad waddooyinka fadhiisataan mooyaane waxaa idinku waajiba qofka wareersan inaad waddada u tilmaanto haddaad waddada fadhiisato aad tidhahdo meel hebel waa agga waa dhankaas u leexaad dhahdo toosiso qofka wareersan oo xaafadiisa ku toosila waxaa kaloo kugu waajiba qofka meesha kugu soo maroo ku salaaman inaad ka radido waxaa ugu dambeeya qof dulman waddadii adoo fadhiya haddaad aragto inaad u gargaartaa waajiba buu yidhi nabiga sal ly slam oo waddo yaroo hadda aad soo fadhiisatay ka warrama hal qof oo la dulminayo bal ummaddan oo meel degan oo deegaankooda laga barakicinayo xoolahooda la qaadanayo ceelashooda la duminayo buundooyinkooda la jarayo in loo gargaaro laga hor istaagaayo gargaar bani aadan xataa inuu gaaro maxaad u malaynaysaan dhammaanteena markaa waxaa waajib nagu ah inaan taas aan gurmad u samayno nabiga sal alla alay wasalam wuxuu sheegay uu yidhi xadiis kale oo saxiixuljaamici ku jiro xasana man nasara akhaahu bidahri lqaybi nasarahu llahu fi dunya waalaakhira walaalkiisa muslimka qofka
u nusreeyo u gargaaro isagoo ka maqan. anaga hadda hiiraan ma joogno, maanta waa ka maqannahay, bartaanaan fadhinaa. barteena anagoo fadhino ayaan u gargaari karnaa, kelimaan ugu gargaari karnaa, jeeb baan ugu gargaari karnaa, telefoon aan dirnaan ugu gargaari karnaa, talaan ugu gargaari karnaa. intaba qofka u gargaara walaalkiisa isagoo ka maqanna u gargaara, u heeliya, nasarahu llahu fi dunya waalaakhira. adduunye aakhiro qofkaas ilaahay baa u gargaaraya isagan. walaalayaal, warkayga waan soo gaabinaya. waxaan leeyahay dad badan baa meeshaas soo istaagay. dhammaanteena waxaan lahayn soomaaliya ha noolaato. waa sax, waa kelima aan dhahayno. soomaaliya ma noolaan karto iyadoo uu shabaab nool yahay. ma noolaan karto, ma noolaan karto shabaab oo nool. soomaaliya lama noolaan karto, iyadiyo shabaabna ma wada noolaan karaan. waxay ku noolaan kartaa inay iska saarto shabaab, lagana adkaado. waana shar, waana laga adkaanayaa. waxaan ku soo gaabinayaa warkayga. shabaab horta waxaana tusay ugaaska sultaanka ii sheeg nabadoon cilmi raxmatullaahi calayhi iyo dadkii la mid ahaabaa tusay dadka in shacab aan dowlad xataa u baahna iska celin karaan, ayna iska saari karaan. waxay u baahan tahay qofka muslimkaa. runtii waxaa ku filnayd xafladan aan maanta nimid inteenna inaan kelimaadkiisii keliya aan dhegaysano, kadibna wuxuuna yidhi aan yeelnoon kala tagno. hataa dad kale maanta inay hadlaan ma ahayn. runtii wax nagu filan, qalbiga taabanayo oo adag buu noo sheegay. allah u naxariisto, ilahay jannadiisa ha geeye. qof walbana waa dhimanaya. walan yuakhir allahu nafsan idaa jaa ajaluha. ajasha haddii la gaaro marna qofka noolaan maayo. wamaa kaana linafsin an tamuuta ila biidni illahi kitaaban muajala. nafna ma dhimanayso ilaahay idinkiisa in la helo, haddana ajasheeda la gaaro mooyaane. dhammaanteenna waa la ogyahay, waa wada xukumannahay. laakiin wuxuu sheegay nabadoonka, dhammaanteen wuxuu yidhi tan ilaahay baanba ku xukumannahay, waa la dhimanayaaba. kullu nafsin, cid ka badbaadaysa male. kullu nafsin dhaa'iqat lmowt. waa la dhimanaya. man lam yamut bisayfi maata bigayrihi. tanawacti alasbaabu waalmowtu waaxidu. waxaan kusoo gebagabaynaya, shabaab waa tageen. inta kaloon kacdoon ku jirna soo galeen. haliska wada dhacsho. miaal yar baan idin tusayaa inay tageen 10 sano ka hor. buundada buulo burde shalay la jaray, daraad la jaray, iyagaa dhisayay meeshii ka jabtay. mise maahan dadkii hiiraan ma joogin? iyagaa dhisayay. maanta inay dumiyaan maxaa keenay? maalinkay dhisaayeen rajay lahaayeen inay ka tallaabaan oy meelo kale u gudbaanay rajo lahaayeen. maantase anigu god baan galay, ha iga soo dabagelin, buundadan waa iska jarayaawe. taas waxay tusinaysaa ya'si, quus iyo gebagebo. insha allahu tacaala ma wada gebagabaynaynaa? ma gebagabaynaynaa? aad baad u mahadsantihiin. runtii waxaan u mahad celinayaa gudoomiyaha haween gobolka banaadir kelimadeeda dhiiran ee ay sheegtay. waan ugu mahad celinayaa, iyo ururka haween ahaan beri dhaweyd inay iyagoo buskudkoodii iyo beesadoodii iyo tuutahoodii wato oo gudoomiyuhu ay hogaaminaysay inay tageen furunta ay tageen. waxaan kaloo habad kafsana haddaan ku daro, war dhallinyarada badan ba uma jeedeen, maxay la dhuntaa intay dhankaanay fadhiyaan. dhallinyaroy waxaan idin leeyahay, gabdhaha reer hiiraan, war nabadoonkan oo kale iyo geesigan oo kale dhalaane ogaada fiiriya. waad mahadsantihiin.